kadib markii saaka dagaal dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland uu ka dhacay degmada Hadaaftimo ee bariga gobolka Sanaag ayaa si aan faahfaahin dheeraad ah uga helo khasaaraha u dhaliyay dagaalkaasi waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay gaashaanle Cabdirasaaq Dalmar oo kamid ah saraakiisha ciidamada Somaliland ee ku sugan halkaasi. Waa gaashaanle Cabdirasaaq baa la yiraahdaa Cabdirasaaq Dalmar. Horta marka hore ciidanka dee warbixintiisu laan bay leedahay oo taliyaha ciidanka iyo hogaanada khuseeya inta badan ka hadla laakiin meeshii waxay ka dhacay haddaan kaaga warramo. ciidanka waxa ugu sareeya oo wata Colonel Ibrahim Xali Samir taliyaha barta Yube haysta watay bariyaha nimanka halka jooga dhaqdhaqaaq aan xadimeyn iyo weeraro iyo nimankaasi waayo taliye nimankaasi waayo waa nimanka nabadiida ah ee Puntland ee degan halka Hadaaftimo ka soo sokaysa ciidanka Puntland way saaka waxa la sheegaya wararku sheegay in dagaal halkaasi ku dhaxmaray ciidamada Somaliland oo aad adigu kamid tahay oo halka joogto iyo sidoo kale ciidamada Puntland bal khasaaraha ka dhacay halka nooga warbixi khasaaruhu marka horeba waad ogtahay halka waxa jooga ciidamada special force ka la yiraahdo sida gaarka u tababaran ka doosiyada iyo ciidamadii ugu xoog weynaa ciidanka qaranka ma garad khasaaraha halka ka dhacay annaga xaggayga 3 askari baa dhaawacmay laakiin iyaga jab weyn baa loo geystay oo laba gaari oo qoriyo saaray inuu technical waa laga qabtay gaari kale oo qori 37 saaray yahayna waa laga gubay taradoodii waa qabsamay qoriyihii ciidanka fantrigiisa kay waa guranay wiilal 7 nin waa ka dhinteen ilaa 12 askari meelahaasina waa ka dhaawacmeen waxaabisi la 5 baanu ka qabanay oo eriga baanu keenay oo waa wax mubaax oo aan lagu murmi karno taarikada ciidanka Puntland iyo adreesyada ciidanka Puntland way wada sitaan intaasa meesha ka dhacday ciidankayga waxaan 3 askari ee dhaawac ahayn ma soo gaadhin waa nabad qaba ciidanku fariisinkiisii buu ku sugan yahay ay ka qabsadeen ciidanka cadawga ee kadada la yiraahdo halkaasaan ku suganay halka kadada markii hore yaa joogay kadada waxa joogay markii hore ciidanka Puntland hadda ciidanka Somaliland baa jooga dagaalkan saaka muxuu ka bilowday muddo dheer halka ciidamadu way isku dhawaayeen laakiin wax dhibaato ah kama dhicin wallahi ciidanku waad garan kartaa oo hadii ciidan xoog badan oo meel degan laga dayin waayo marba afar gaari inta hareen laga mariyo la dacodeeyay rasaas lagu soo rido haday marka dambe wala madaxa isla gelaya shalay toole la asqoray baa wax ka dhaceen maxaa taliye taa kala war socotaan adigu intii ugu koobnay baa ay ku sheegay afayeenka ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka hadlay dhirbaxa ay ku dhufteen maleeshiyaadka maamulka Puntland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa dhirbaxa kale ku dhuftay maleeshiyaadka maamulka Puntland oo soo weeraray saaka deegaanka Kadhada oo 18 kiiloomitir u jirta deegaanka Yube gobolka Sanaag sidaasna waxa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afayeenka ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland gaashaan la sare Cabdilaahi Xasan Cabdidere war saxaafadeed kan oo noqol kamid soo gaaray telefishinka qaranka Somaliland iyo wakaalada wararka Somaliland ayaa waxa uu dhignaa sidan maamulka Puntland ciidamadoodu waxa ay weerar ku qaadeen shalay toole 25 bisha labaad sanadka 2020 barasaabka la asqoray ee jamhuuriyadda Somaliland oo isku dayeen inay dilaan asahaatee Ilaahay ee ka badbaadiyay waxaana haddaan daansi joogto ay ku hayaan dadka Somaliland ee degan baran iyo deegaamada kala duwan ee ku hareeraysan saaka abaar 6 iyo barkii subaxnimo ayaa ciidamada maamulka Puntland isku dayeen dagaal ka bilaama deegaanka Kadhada oo 18 kiiloomitir u jirta Yube halkaasna waxa isku haleelay ilaalada jiida hore ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyagoo oo dagaal ogayaashii maamulka Puntland halkaasi ciidamada qaranka Somaliland dhirbaxalama ilaawaan ay ku dhufteen kana soo hooyeen guul weyn iyagoo ka qabsaday hub iyo gaadiid tiro badan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland dooni maayaan dagaal laakiin haddii laga deen waayo daandaansiga joogtada ah waxa uu ka gudan doonaa waajibaadkiisa cid kasta oo isku dayda in ay daandaansato jamhuuriyadda Somaliland